ninkan toogasho ayaa lagu xukumay. Inta aan tiirka la geyn waxa uu xabsiga gudihiisa kula kulmay cadaab adduunyo kii ugu xanuunka badnaa, wuxuuna gaaray heer uu ku celceliyo isagoo oynaya oo qaylinaya, hadda ha lay toogto, si degdeg ah ha lay toogto. maxaa sababay inuu ciqaabta intaan leeg adduunka ku mutaysto iyadoo aan aakhiraba la gaarin, iyo nooca dambiga uu galay oo ah mid aadan hore u maqal ayaan rabaa inaan muuqaalkan kuugu faahfaahiyo. nala joog ilaa dhammaadka qisada, waxaana ka codsanaya inaad muuqaalkan like saarto oo sii share garaydo si uu u gaaro saaxiibo badan. faahfaahinta qisadan ayaan rabaa inaan muuqaalkan idinkula wadaago. qisadani waxay ku bilaabmaysaa gabar dhalinyaro ah, firfircoon, ixtiraam badan, aadna u qurux badnayd oo u dhalatay dalka Masar. gabadhan dhalinyarada ah markii ay soo weynaatay waxay go'aansatay inay nafteeda dabarto oo ay shaqo ku filan raadsato. shaqo ayay raadsatay, ugu dambeynna waxay shaqo ka heshay meel lagu iibiyo dharka dumarka. meeshan dharka dumarka lagu iibiyo waxaa milkiilaheeda ahaa ama iska lahaa wiil dhalinyaro ah aan weli guursan, isaguna ahaa nin ixtiraam badan oo akhlaaq badan. waa uu soo dhoweeyey, shaqo ayuuna siiyey gabadhii. in muddo ah markii ay u shaqaynaysay gabadhii wuxuu ka helay waxqabadkeeda, akhlaaqdeeda iyo ixtiraamkeeda. iyaduna sidoo kale waa ay ka heshay maadaama uu ahaa nin dhalinyaro ah oo ixtiraam badan, akhlaaq badan. dabcan labadooduba waa ay iska heleen, waxayna ku heshiiyeen inay xiriir jacayl samaystaan. xiriir jacayl ayay samaysteen. in muddo ah markay wada socdeenna reerkooda ayuu u tegey, gabadhiina waa uu doontay, sidaas ayuuna ku guursaday. gabadhii waa uu guursaday, waxayna bilaabeen inay ku noolaadaan farxad, isfaham, jacayl iyo ixtiraam, reer dhammaystiran oo meel deggan. arrimuhu sidaas ayay ahaayeen muddo dheer. waxay joogeen asbuuciyo, bilo, sannado, ilaa 4 sano ay u dhammaystirmatay. waxaana u dhalatay 2 gabdhood. labadii gabdhood waa ay koreen, way u weynaadeen. mid waxay gaartay 4 sano, midna waxay gaartay 2 sano. shaqada ayuu u kala lahaa subax kasta, iyaduna ilmaha ayay sii daryeeshaa oo sii xanaanaysaa oo u sii haysaa. in muddo ah ayay ayaga iyo ilmahooduba farxaddaas ku noolaayeen. mar xilli dambe ah ayuu gurigiisii yimid. sida caadiga ahna gurigu hoos ayuu ka xiran yahay, laakiin isagu wuxuu wataa furo uu bannaanka uga soo furo oo sidaas ayuu guriga ku soo galaa. markii uu guriga soo furay ee uu gudaha u soo galay, wax shanqar ah ma uu maqlo. gurigii oo dhan degganaasho ayuu ka arkaa, sida inuu cidlo yahay. gudaha ayuu u soo galay. awalna sida caadiga ah xaaskiisa ayaa albaabka ka furi jirtay, ama marka uu soo furayaba waa ay ka hor imaan jirtay oo waa ay soo dhawey jirtay, xitaa haddii ay ilmuhu hurdaan. isagoo yaaban ayuu gudaha u soo galay gurigii, waxa uuna u gudbay qolkii hurdada. albaabka markii uu soo furayba fajac iyo amakaag ayuu arkay, aad ayuuna u naxay. wuxuu arkay ilbiriqsiyadii noloshiisa ugu naxdinta badnayd. wuxuu arkay xaaskiisii oo ku dhex jirta barkad dhiig ah, jirkeedana ay ku yaalaan 67 midiyood oo lagu duray. dhinaceedana waxaa jiifta gabadhiisii 4 jirka ahayd oo iyadana sidoo kale midi loogu galay oo ayana dhiig ku dhex jirta. laakiin waxaa mowqifkan ka maqan oo uusan markaas arkin gabadhiisi yareed oo 2 jirka ahayd. waa uu raadiyey bal inay nooshahay, magaceeda ayuu ugu yeeray, meel walba ayuuna ka raadshay. ugu dambayn ayadiina waxa uu ka helay meel kale oo guriga dhexdiisa ah. ayadu mid ayay ahayd, laakiin midi laguma dilin, si kale ayaa loo dilay, wax nabar ahna kuma uusan oolin. mowqifkaas markii uu arkay waa uu qaylo dhaamiyey, waana uu miyir daboolmay oo halkii ayuu ku dhacay. dariskii oo dhan ayaa isku soo baxeen, waa ay fajiceen, aad ayayna uga naxeen waxa qabsaday ninkan. isla markaasna waxaa imaaday tuhun ah Faadumo ama ninkeeda qiyaamaysay oo niman kale oo ay gurigeeda ku soo xareysatay ama sidaan u galeen. laakiin Faadumo waxa lagu yaqaanay qof aad u akhlaaq badan, albaabkana kama aysan furi jirin xitaa haddii ay naftu ka dhacayso. qof aan ahayn ninkeeda iyo qaar ka mid ah qoyska ay iyadu ka dhalatay. waxaa la ogaaday qofka Faadimo dilay inuu yahay qof qoyskeeda ka mid ah ama qof Faadumo yaqaana, sidoo kalena ilmaheedu ay yaqaanaan. maxaa yeelay haddii uu ahaa tuug iska socda ama lacag iyo waxyaalo noocaas ka qaadanaya, ayada ayuu dili lahaa, kadibna wixii uu ka rabo ayuu ka qaadan lahaa. laakiin qofkaanu waa qof ay ilmuhu yaqaanaan oo ka cabsanaya inay hadhow ilmuhu dhahaan hebel ayaa hooyadeen dilay. intii baaritaanka la waday, jikada ayaa la galay, waxaana miiska jikada lagu arkay qof Faadumo inta aysan geeriyoon ka hor shaah kula cabay oo 2 koob oo shaah ahayd miiska ay saaran yihiin. isla markaasna waxaa la arkay dharkii uu ninkeedu guriga ku joogi jiray oo dhiig leh oo ayaguna isla meeshii yaalla. waxaana la ogaaday qofkaanu inuu xirtay ka hor inta uusan dilin xaaskiisa. intaas wixii ka dambeeyey waxaa baaritaan lagu bilaabay dadkii Faadumo u dhowaa ama faamilkeeda ahaa oo iyada qoyskeeda ka mid ahaa. waxaa la ogaaday in dhammaan qoyska Faadimo ay yihiin dad ixtiraam badan, akhlaaq badan, waxyaalahan in aysan ka suurtagelin. laakiin qoyskeeda waxaa laga helay wiil ay habaryar u tahay oo iyada walaasheed ka weyn ay dhashay, kaasoo ahaa nin aad u xun,
mukhaadaraadka iyo daroogadana aad u isticmaala. qof intii qof xun yahay xun ayuu ahaa. waxaana la yidhi amuu hebel yahay qofka falkan geystay. inta ay booliisku baaritaanka wadeen waxaa lala kulmay wiil kale oo ay isyaqaanaan yarkan daraagiska isticmaala oo ay Faadumo habaryarta u ahayd. yarkaas wuxuu sheegay inuu wiilkan lacag badan ku lahaa, jariimadan intaysan dhicin 2 maalin ka horna uu u yimid oo uu ka dalbaday inuu lacagtiisi siiyo, waliba uu yiri lacagtaydii halkaas ii dhig. sidoo kale yarkan wuxuu booliiska u sheegay markii uu dambigan dhacay maalin uun kadib inuu lacagtiisi u keenay oo deyntii lagu lahaayo intaas oo dhan loo haystay uu iska bixiyay. tuhunkii waa uu sii weynaaday. waxaa la yidhi waa ninkii odaga ahaa, maadaama uu yahay nin aad daraagiska iyo waxyaalahaasna u isticmaala. Faadimana ay isku dhawaayeen oo ay habaryar u tahay, marmarna uu guriga ugu imaan jiray. yarkii waa la soo qabtay, xabsiga ayaana loo taxaabay. laakiin saaxiibkiis wuxuu sheegay inuu hayo shandad ama boorso naageed oo uu lacagta ugu keenay. booliisku waxay dhaheen yarkii keen boorsada aad sheegaysid. boorsadii waa uu keenay. markii boorsadii la fiiriyey oo qoyskii Faadumo la tusay, waxaaba la ogaaday inay tahay boorsadii Faadumo ay wada jirtay ama boorsadeedii gacanta inay tahay. markaan wixii tuhun waa ay dhaafeen. yarkan dambigii waa uu ku cadaaday, waa la soo qabtay, waa la wareystay. waraysiga kadibna dhammaan dambigii waa uu qirtay. wuxuuna dhahay lacagtaas deynta ayaa la igu lahaa, anigu waan cabsanaa, waxyaalahaas daraagiska ayaan isticmaalay, anigu caadi maskaxdaydu ma aysan ahayn markii aan waxaan samaynayay. Faadimo xaafadda ayaan ugu tagay, daawo hurdo ah ayaan shaahi ugu daray. markii ay seexatay kadibna middo ayaan ku dilay, kadibna lacagta ayaan qaatay. waxaa la dhahay haddii ayba huruday maxaad boorsadaada u qaado weysay oo horey ugu sii bixi weysay? daraagisku waa balaayo. qofka daraagiska isticmaala wax walba waa ay la fudud yihiin. niyadiisu waxay u sheegtay haddii uu boorsadan qaato hadhow in la soo qabana, laakiin haddii uu dilo ayada iyo ilmahaba inaan dib dambe loo ogaanin. ninkan dembigii oo dhan markii uu qirtay waa la xukumay. dil toogasho ah ayaana lagu xukumay. xabsi ayaana la sii geliyey si loogu sii hayo inta toogashada la gaarayo. laakiin ninkan habeenkii koowaad ee uu xabsiga ku haydayba wuxuu bilaabay qayladhaan. markii uu seexdaba waa uu soo baraarugaya asagoo qaylinaya oo dhahaya hadda ha la ii toogto, waxba yaan dib la ii dhigin, si degdeg ah la ii toogto. wuxuuna sheegay asagoo soo jeeda iyo asagoo hurdaba inay habaryartii soo hor istaagayso, ayna dhibaato badan u geysanayso, xanuun badanna uu dareemayo, uuna jecel yahay in hadda nafta la dhaafiyo. laakiin lama maqlin intii loogu talagalay. markii uu xabsigiisa ku jiray ayaa ugu dambayn ninkan tiirka la geeyey, halkaas ayaana lagu toogtay. mararka qaar waxaa dhici karta dembi aad gashay adigoo adduunka jooga in aakhire intii aan la gaarinba adduunka aad cadaab ku martid oo adduunkii dhexdiisa lagaaga jaro. qisadeennu intaan ayay ku eg tahay saaxiibayaal. maanta waxba kama aanan soo tegin oo qisadii waan idiin dhammaystiray. idinkuna waxaan idinka codsanayaa inaad si ixtiraam leh youtube-kayga waayaha dunida oo subscribe soo dhahdaan.